horta halkaa waxaa ka muuqata hogaamin qiraysa in laga soo bilaabo taariikhdii hore la ogaado tataagan ka bacda ayaha laga tashado raggii toddobaatameeyadii tacliinta gacanta ku hayay midhahoodii halkan ay fadhiyaan oo wasiir aadan ragguu soo saaray wasiir faarax iyo madaxweynaha ka mida iyo goodax iyo ragga halkan fadhiya iyana raggii ay soo saareen maanta golaha wasiiraday kula jiraan waxaa halkaa fadhiya wasiir jaamac wasiir biixi wasiir nuura iyo wasiirro fara badan oo qarankii markuu dumay ka faa'iiday hiilkii iyo gurmadkii ay la gaadheen ragga madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed iyo wasiir faarax iyo ra'iisul wasaaraha oo isna shaqadii ugu badneed inta badan uu juhdiga geliyay ay ahayd barbaarinta iyo kubcinta da'yarta Soomaaliyeed Soomaalidu inta badan waxay xasuusataa wixii lumay ee waxa la haysato ma xasuusato waxaan dhageystay khudbad dheer oo cilmiyeysan oo wasiir Cabdinuur uu ka jeediyay malaha geyiga Mareykanka oo uu kaga hadlayo sooyaalka waxbarashada Soomaaliyeed wuxuu qiray sektorka kaliya ee badbaaday waa intaan teknolojiyada iyo telecommunication kuna inaga daba imane sektorka kaliya ee badbaaday ee ummadda samata bixisay inay ahayd waxbarashada taana rag iyo habla u kacay waanu u bogaadinaynaa dadaalka dheer ay soo sameeyeen laakiin xisaabtu laynoo soo bandhigay ee wasaaraddu ay noo soo bandhigtay waxay inoo sheegaysaa in kastoo la dadaalay oo ay rag u kaceen haddana boqolkiiba 24 oo kaliya ayaa maanta da'yartii da'dii iskuulka gaadhay iskuulla ka gasha waxaan ku soo gunaanadayaa da'yartaasi in badan waxay u dabranayd hogaamiye kooxeedyo waxay u dabranayd deegaano iyo dagaal marna inta hadda malaayiin baanu rabnaa inaanu ka soo bixinno gacanta cadowga 4 milyan ee dhalinyarada Soomaaliyeed da'yarta aan waxbarashada bilaabin baridood waxay ku hoos nool yihiin shabaab iyo meelo aan dawladnimadu gaadhin waxaan rabnaa inaanu isla meel dhigno qaran ahaan waxaynu rabnaa inaanu qaran dhisano waa qorshaha weyn ee inoo yaala qaran dimuqraadiya oo federaaliya oo dastuur inaanu dhisano ka maarmi maayo bulsho aqoon leh waxaynu rabnaa dhaqaalaheena inaynu kabno oo GDP-geena iyo markaysaay cashuuraadkeena iyo wax soo saarkeena kobcino ka maarmi mayso in la helo bulsho aqoon leh waxaynu rabnaa inaynu qoys ahaan iyo qud ahaan iyo qaran ahaanba asaagan ula tartanno laga maarmi maayo in la helo aqoonyahan Soomaaliyeed haddii aad eegto maalgashiga World Bank uu ku sameeyo ama hay'aduhu ay ku sameeyaan Soomaaliya kharashaadka u badan waxay go'aansadeen in la geliyo waxbarasho iyo caafimaad sababtoo ah marka la helo qof caafimaad qaba aqoonna leh ba siyaasadaha kale fara badan aanu higsanayno la gaari doonaa waxaan ku soo gunaanadayaa 60kii abwaankii weynaa ee aadan carab la oran jiray 60meeyadii gabay buu mariyay filashada qofka Soomaaliga uu ka qabo dawladnimadan rabayna wax idin ka sheego marka gabay dheer buu mariyay wuxuu yiri sidii baan midhaha ugu cunaa madaxa toomoode sidii baan martida caana qura ugu macsuumaay sidii baan tacliin iyo uga madnahay macadka diimeed 60kiina saasuu ina lahaa 2012kiina abwaanka gamadiid wuxuu ina yiri adduunyada tacliin iyo cilmi lagu tanaadaaye kuwa samada tagay waa aqoon waxay ku tooqaaneen tartan bay ku gaadheen halka kuna tis qaadeen